subscribe, like, share, comment. Gambalan kadaysi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركله كلنتو عن وناكسن سو نقد وناكسن waxaan hore u soo gabagabeynay labadii sano ahaa 2019 waan soo gabagabeynay imtixaankiisa sidaas oo kale 2018 waan soo gabagabeynay maanta waxaan u diyaarsanahay 2017 imtixaankiisa inaan maxaan ku raada aan xalino waa inaad ogaataan oo aad ka warhaysaan 2017 iyo 2015 imtixaankooda la isku daray ayaa waxa loo bixiyay wax la yiraahdo 2019 imtixaanka la qaaday saas ayuu ahaa in badan oo su'aalo meeshan ku jiro waxa laga yaabaa 2019 in ugu soo shaqeynay wixii 2019 aan ugu soo shaqeynay oo inta naga soo galo waa ka gudbeynaa meeshaas ka raadsan doontiin waan idin sheegi doonaa su'aalaha marka toos aan u galno casharka aan toos u galno waxa la yiri su'aasha koowaad which of the following is equal to sin A plus B. Sin A plus B يي لم يعنتها يي لجنتها قاعدة maxay noqonaysaa meeshaan A waxa ku qoran cos A cos B minus sin A sin B B waxa ku qoran cos A cos B plus sin A sin B C waxa ku qoran sin A cos B plus cos A sin B دينا waxa ku qoran sin A cos B minus cos A sin B jawaabta rasmiga ee saxda ah waa C oo ah sin A cos B plus cos A sin B isla su'aashan 2019 ay ku jirtay su'aashaas marka su'aashaas meeshaas ka baxayna sin A plus B maxay noqonaysaa waa la og yahay waxay noqonaysaa sin A cos B plus cos A sin B su'aashaas meeshaas ka baxayna su'aasha labaad waxa la yiri which of the following is equal to sin waxa la yiri 300 oo degree ayaa meeshan ku taala A jawaabtu waxa la yiri sin 60 B waxa la yiri minus sin 60 C waxa la yiri cos 60 D waxa la yiri minus cos 60 very easy way fududaatan su'aasha marka la rabo in la doorto aad ay u fududahay waxa sameynaysaa ugu horeen calculator-ka soo qaadanaysa waa fududaatan shaqo badan oo saas ay marto waxa sameynaysaa calculator-ka marka soo qaadata waxa dhahaysaa sin 300 su'aashi lagu weydiiyo horta gelinaysa tana gelinaysa waxa ku soo baxaayo minus radical 3/2 soo baxaysa minus radical 3/2 meel ku qoranaysaa minus radical 3/2 meel ku qoranaysaa minus radical 3/2 meel dhigay marka afartan jawaabood kee waay marka afartan jawaabood kee leh kana gelinay marka hore sin 60 aan leedahay sin 60 ayaa leedahay radical 3/2 bis soo baxday minus soo baxin kan ma aha okay haddana waxa gelinaysaa minus aan leedahay sin 60 ayaa gelinay haddana minus radical 3/2 kan waay marka B waa jawaabtaada marka see sameynaysaa marka waxa sameynaysaa su'aasha hore gelinaysaa 300 gelinay jawaabta ku soo baxda meel dhigay afarta marka waa gelinay mid koowaad gelinay A da gelinay waxa ku soo saartaa fiirina B da gelinay waxa ku soo saartaa C da gelinay D da gelinay all in all B ya jawaabta saxda ah waa B taas iyadana waan ka soconaynaa marka su'aasha labaad ayadana meeshaas ayaan u baxaynaa su'aasha saddexaad waxa la yiri the probability of getting sum of 12 in throwing two dice is suurtagalnimada lagu helayo wax markii la isku daro 12 ku siinaayo markii laba la flaadhu la tuuro waxay noqonaysaa liir A jawaabtu waxa la yiri A waxay noqonaysaa jawaabteeda hal hoos dhig 36 B waxay noqonaysaa liir laba hoos dhig 9 C waxay noqonaysaa liir hal hoos dhig 18 D waxay noqonaysaa liir 5 hoos dhig 36 afartan jawaabood waa tee laba wax markii la isku daro 36 wala wax markii la isku daro 12 ku siinayna laga rabaa laba la flaadhu markii la tuuro maxaa laga wadaa la flaadhu inta la saaraya laf kale la dhuwa inta taalo tan markii la tuuro ay dhulka ku dhacdo tan la tuuro dhulka ku dhacdo waxa la rabaa kan wixii ka soo baxo oo aad tuurtay kan wixii ka soo baxo markii la isku daro inay 12 keenta la rabaa labadii la flaadhu markii dhulka ku dhacaan haddii kan ay soo saarto 6 ay soo saarto kan 6 ay soo saarto markii la isku daro maxay noqonayaan 12 fiir marka waxaan dhahaynaa marka horta aan sameeyno 6,6 okay maxaa kale 12 ku siinaya markii la isku daro oo 12 keenaya aad rabaa laba flaadhu markii la isku daro 12 ku siinaayo aad rabaa 6 mana la kala gidi karo tiradan 6 waa isku mid beedka mid ah labadan tira isku mid wax markii la isku daro 12 ku siinaayo kale ma jiro 6 waxa ahayn ma jiro meeqo marka meeshan hal xabo waa hal tiro waa guud ahaan laba la flaadhu sample space-kiisu waa 36 hal la flaadhu markay tahay ogaada NB waay hal la flaadhu markay tahay waa 6 sample space-kiis two dice markay tahay laba la flaadhu markay tahay waa 36 hal hoos dhig 36 jawaabtaas yaa waa A waay
حريقنيسا هل لو وصل لح هل لو وصل صدني لح سؤاشاس ايضا سدحات ميشاس aan kaga bixeena su'aasha afraad waxa la yiri a box contains صندوق ayaa waxa ku jirto 6 black lix oo madow black waan qoraynaa lix madow and 8 white is 8 oo cadaan ayaa ku jirto sanduuqaas oo boolis oo kubada sideed lix oo black oo kubadood iyo sideed oo cadaan oo kubadood ayaa ku jiro one ball is thrown at random hal kubadood ayaa si cashwaaya la baxay iyadoo la fiirinayna cashwaaya waxa laga wadaa sanduuq adoo si jeeda gacanta gashanaysa ama indhaha ka xiran ayaa gacanta gashanaysa waa la soo baxaysa random loo yaqaanaa what's the probability that the ball thrown is white waa ma ihtimaalaadka ama suurtagalnimada kubad cad ay ku soo bixi karto kubad cad ina waxa la rabaa sanduuq marka gacanta gashatid kubad cad dhakab ina siistaa laga rabaa suurtagalnimada kubad cad dhakab ku siisa leedahay laga rabaa waa very easy waxa leedahay cadaan oo meeqa ku jiro horta balaag waa lix cadaan oo meeqa tahay 8 waay cadaan meeqa tahay waa 8 okay guud ahaan marka meeqa ku kooban sanduuqaas inta ku jirto 6 iyo 8 isku dar waa 14 ma yaryarey karnaa ha 4 u qaybi waa 2 sorry 2 u qaybi aan dhaho 2 u qaybi waa 4 2 u qaybi waa 7 4 loo hoos dhigo 7 jawaabaha meesha ku yaal marka aan ku akhriyo waxay leedahay 3 loo hoos dhigo 4 b waxay leedahay 3 loo hoos dhigo 7 c waxay leedahay 1 loo hoos dhigo 8 d waxay leedahay 4 loo hoos dhigo 7 d 4 loo hoos dhigo 7 4 loo hoos dhigo 7 d ayaan xariiqeynaa numberka d da ayaa sax okay su'aashaas afraad meeshaas aan kaga bixeynaa waxaan galeynaa su'aasha shanaad if sin theta hadii sin theta qiimihiisu uu yahay 5 loo hoos dhigo 13 uu yahay then cos theta wuxuu kula mid yahay marka waxa la yiri jawaabta waxa la yiri 12 loo hoos dhigo 13 b waxa la yiri 12 loo hoos dhigo 5 c waxa la yiri 13 loo hoos dhigo 12 d waxa la yiri 5 loo hoos dhigo 12 waa tee marka afartan jawaabood tee iska leedahay marka waa very easy mar hadii sin lagu siiyo cos waa la heli karaa waxa la isticmaalaa radical ayaa la leeyahay 1 minus waxa la siiyo 5/13 oo square sidaan lagu helaa waxa leenahay marka 1 dheh minus 5 loo mar isku dhufo meeqa noqonaysa waa 25 13 loo mar isku 169 waxa leenahay marka 169 hal ku dhufo waa 169 25 ka gooy 144 loo hoos dhigay 169 oo xidid ku jirto 144 xididka ka bixi waxay noqonaysaa 12 169 xidid ka bixi 13 12 loo hoos dhigay 13 yaa waay waa kana jawaabtaada waay 12 loo hoos dhigay 13 jawaabta ayaa xariiqeena su'aasha shanaad ayadana halkaas ayaan kaga bixeena su'aasha lixaad bal aan galno waa page number waxay ku qoran tahay page kan waxa la yiraahdaa page 4 ayaan galeynaa page 4 ayaan galeynaa waxa la yiri the median of this data xogtan 2 su'aashaas mar raba inaan ka shaqeeyo waayo in badan ayay nagu soo noqotay su'aashaas oo aan ka shaqeynayno marka waan ka gudbaayaa meesha waxa qoran 2 3 1 6 4 5 7 is waxay noqonaysaa waxa waaye 3 b waa 5 c waa 4 d waa 6 arday aanan aqoonin male ko marka hore arrange garay ascending or descending u samee kordaadag ama hoosdaadag kadib hadii kisi tahay mid dhaxla bood hadii dhaban tahay labada tiro oo dhaxla isku dar laba qaybi way ku soo baxaysaa jawaabta answerka saxda meesha ku yaal ku soo baxay su'aashaas lixaad baan ka boodayaa muhiim ma aha inaan ka shaqeeyo su'aasha toddobaad waxa la yiri the solution of su'aashan oo kale waan ka shaqeey karnaa su'aasha toddobaad indefinite integral waaye waxaan leenahay 3x square plus 2 dx is marka jawaabtu waxay jawaabaha su'aalaha way qorin bal horta aan ka shaqeynay kadib aan jawaabaha yeeri doonaa midka saxda aan ku qaadaynaa waxaan leenahay 3x square plus 1 aan leenahay kor waxa saarto hoosna dhig 2 plus 1 dheh plus dheh 2 dan soo qaad 2x dheh plus c oo ku qasbantaa inaad raaciso si wad marka waxaan leenahay shaqada way sii socotaa wali waaye way dhimantaa shaqada oo waxaan leenahay 3 soo qaad x oo cubic intana hoos dhig cubic plus 2x plus c waxaan leenahay 3 dan iyo 3 dan isku bixi x cubic plus 2x plus c marka waan yeerinayaa jawaabaha mid saxda ila doorta marka wuxuu yiri waxa soo baxay 3x plus 2 plus c ayaa soo baxaysa yiri ma aha aniga waxaan noo qoran x cubic plus 2x plus c taas ma b waxa yiri 6x plus 2x plus c ma aha iyadana c waxa yiri x cubic plus 2x plus c waka c waa marka c ayaa xariiqanayna su'aasha jawaabta rasmiga waa c sida koobaabin giri
su-aashaas iyadana meeshaas kaga bixinaa su-aasha sideedaad ayaan gelaynaa a pair of dice aa layidhi pair of dice is rolled waa la tuuray pair of dice waa naqaanaa pair haddaa maqasho waa lamaane what's the probability of obtaining the sum of the values being 7 waxaa la iska rabaa laba la flaadhu waa la tuuray bayr waay laba la flaadhu ah bayr waay waa la tuuray hal meel ay ku jiraan hal caag ay ku jiraan bayr waay waa la tuuray labada la flaadhu ah markii la tuuray waxaa la rabaa laba inay ka soo baxdo labadaas laba tir markii la isku daro ku siinayso 7 labada la flaadhu caagaan ay ku wada jiraan kala soo qaad qalow alagsi labada waa la tuuray waxaa la rabaa markii labada dhulka ay ku dhacaan middan waxay qoraysaa markii la isku daro inay 7 keento waxaa kamid ah wax markii la isku daro 7 keenaa 2 iyo 5 kamid ah waxaa kaloo kamid ah 5 iyo 2 waa la dabagedinaa labadan waxaa kaloo kamid ah 3 iyo 4 kamid ah waxaa kaloo kamid ah 4 iyo 3 kamid ah waxaa kaloo kamid ah 1 iyo 6 kamid ah waxaa kaloo kamid ah 6 iyo 1 kamid ah wax markii la isku daro 7 ku siinaya u baahanaa maxaa kaloo jiro oo 7 ku siinaya markii la isku daro 2 iyo 5 waa qaadane 3 iyo 4 waa qaadane 5 iyo 2 waa qaadane 6 iyo 1 waa qaadane bas inta waa marka 7 isiinaysaa meeq war 1 2 3 4 5 6 la hoos dhiga meeq hoos dhiga laba la flaadhu maadaama ay tahay 36 hoos dhiga waa yareena 6 u qaybi waa hal 6 u qaybin waa 6 hal hoos dhiga 6 jawaabaha akhrina mid saxda ah ila doorta marka waxaa la yiri hal hoos dhiga 2 ma aha aniga waxaan haysanaa hal hoos dhiga 6 haysanaa b waxaa la yiri 3 hoos dhiga 5 ma aha iyadana c waxaa la dhahay hal hoos dhiga 6 sida sax ah sida koowaabin geliya hal hoos dhiga 6 سؤال سدحاد وحاليري 3 سؤال سغالادا u gudbeena 3 coins are tossed saddex shilin ala tuuray find the probability of getting 3 heads waa ma ihtimaalaadka ama suurtagalnimada ay ku soo bixi karto saddex shilin ala tuuray soo lama dhihin soo marka waxaan sameynaynaa marka shilinka koowaad aan sameynaynaa horka shilinka koowaad waxa waa sambalisi h iyo t oo ka kooban yahay shilinka labaad wuxuu ka kooban yahay h iyo t ayuu ka kooban yahay shilinka saddexaad wuxuu ka kooban yahay h iyo t ilaa shilin wuxuu sidiisaba ka kooban yahay xarash iyo madax ayuu ka kooban yahay xarash iyo madax ayuu ka kooban yahay hal shilin mar walba wuxuu ka kooban yahay xarash iyo madax iyo xarash iyo madax xarash iyo madax xarash iyo madax soo marka waxaan rabnaa maadaama sample space kala duwan ay halka yaalaan hal sample space inaan isku soo aruurino seen isku soo aruurinaynaa kan waa iska dhaafaynaa sample space ka koowaad h iyo t ii soo qaad laakiin labadaas sample space ayaan isku dhufanayaa oo waxaan ka soo saaray hal sample h ku dhufu waa h square has ku dhihin h kan qaada t ku dhufu h t dan qaada inta ku dhufu t dan qaada t ku dhufu t okay then marka sample space kan kala ay dhiman sample space kan hadan ku garaaca h kan ku dhufu hal sample space isla qaad h kan ku dhufu maxay noqonay h saddex h kan markii la qaado labada h lagu saddex h noqonay isla h kan qaada inta ku dhufu waxay noqonay h kan qaada inta ku dhufu waxay noqonaysaa h kan qaada t dan ku dhufu t wuu ka dhamaaday kaas waxaan soo bilaabaynaa hadana t dan qaada inta ku dhufu h okay t dan qaada inta ku dhufu t dan qaada inta ku dhufu sorry waa t dan qaada ku dhufu triple t aniga marka waxaan la weydiiyay marka 3 coins are tossed saddex shilin la tuuray okay waa tuurni hal sample space waa soo samaysan 1 2 3 4 5 6 7 8 saddex bay ka kooban yihiin sample space kayga find the probability of getting 3 heads waa ma ihtimaalaadka lagu heli karo saddex madax halkan fiiri inta waxa ku jira saddex madax meel kale saddex madax ku jirta rabaa saddex oo isla socdaan rabnaa meel kale ay ku jirto male hal xaba bas leeyahay hal aa leedahay hoos dhig meeqo ka kooban yahay 1 2 3 4 5 6 7 8 hal hoos dhig 8 jawaabteena waa marka waan yeeri doonaa jawaabta saxda ila doorto marka wuxuu yiri hal hoos dhig 8 waa jawaabta waa bas b wuxuu dhahay saddex hoos dhig 8 ma aha c laba hoos dhig 8 ma aha d 5 hoos dhig 8 ma aha ilan saddex xajaan algarba probability of getting 3 heads hal meel ku jirtaa bas saddex madax hal meel ku jirtaa 1 2 3 kan 3 heads ma 2 head iyo t waay kan laba h iyo t waay kan hal h iyo laba t waay kan hal t iyo laba h waay kan laba t iyo hal h waay kan laba t iyo h waay kan saddex t waay saddex h hal meel ku jirtaa waa hal waa ka hal intuu ka kooban yahay marka gudkan intee xaba ku jirto 1 2 3 4 5 6 7 8
1/8 su-aashaas iyadana meeshaasaan kaga baxaynaa su-aasha ugu dambeysa qaybtaan aan kusoo gabagabeyn doono baati 1 waxay noqonaysaa su-aasha tobnaad su-aasha tobnaad waxaana laga rabaa inaan soo helno the minimum point of the function y equal x square minus 3x plus 2 is su-aashaan halkan ku taalo manhajkiina form 4 ka ah kuma jirto buuggiina manhajka way ka maqan tahay waa calculus waa qayb ka mid ah calculus waxyaabaha hadda manhajka dhibaatada lagu qabo ayay qayb ka mid tahay waayo imtixaankii ardadan waa loo soo diyaariyey waa loo soo qoray maca dalik haddana manhajkooda uguma jirto waxaa laga yaabaa macallimiinteena khayr allah ha siiyo waqtiga intay dadaal ku bixinayaan inay ka gaari waayaan waxyaabaha extra imtixaanaadka lagu soo daraayo inay maxaan ku raadin ardada ay siiyaan inay ka gaari waayaan waa suuragal inay ka gaaraan waa suuragal meelaha uu caqabadaha kaga jira manhajka iyo diyaarinta imtixaanka meelahan oo kale ka mid ah waxaa fiicnaan lahayd in marka imtixaanka la diyaarinayo ardayga mastawihiisa in la socdo ee maxaan qolooyinka imtixaanka diyaarinaya inay la socdaan xaguu jooga ardaygan muxuu casharo qaatay jabtarada maxaa ka maqan in short list laga soo sameeyo then examka laga diyaariyo sida quruxda badan ayaa saas ahayd marka minimum iyo maximum waa lagu qaataa waxay ku jirtaa calculus-ka ku jirtaa high order wax la yiraahdo derivative ajiro high order derivative ardayga markuu fahansan yahay minimum iyo maximum waa fahmaya almost waa idin soo gaabaya wada fudud oo laga gali kara in tusaaya bari kamaan hadii kugu imaado wadada hadda ku tusilay qaad waxaana laga rabaa the minimum point of the function alayiri y equal aan lahayn marka y equal aan la siiyay y equal aan lahayn x square aan lahayn minus 3x plus 2 is jawaabtu waxay noqonaysaa a waxaana la yiri marka 3,2 b waxaana la yiri marka 3/2, minus 1/4 c waxaana la yiri 1,0 d waxaana la yiri 2,0 intaan taa waana la yiri horta markii la rabo type of solution in la ogaado markii la rabo waxaa lagu ogaanayaa second derivative waxaan ka wadaa second derivative waxaa la sameynayaa waa la daraaf gareynayaa second derivative la marinayaa first derivative waxa la yiraahdo second derivative third derivative ajiro hadaadna ku soo sheego waxa jiro waxa la yiraahdo high order oo derivative wax la yiraahdo jiro high level order derivative ajiro marka kuma jiro manhajkiina see loo sameeynaa second derivative ayada naftirkeeda ayaa maxaan ku raadsaa su'aal ah minimum inaan joogo hadda waxaan loo diray minimum ama maximum the minimum point yana la minimum iyo maximum waxa la yiraahdaa meesha ugu sareysa minimum waxa la yiraahdaa meesha ugu hooseysa waxa jiro inflect waxa la yiraahdo meel dhaxaa jirta iyadana meel dhaxaya jirto anaga hadda meel dhaxna looma dirin meel sarana ma loo dirin waxaan loo diray anaga inaan helno minimum aan loo dirin minimum point bas aan loo dirin minimum point markii la rabo in la soo saaro waxa jirto laba shay ah jirto minimum iyo maximum minimum marka aad inaad soo saartid hadii tirada ay ka weynaato 0 waxa joogtaa minimum aad joogtaa hadii tirada ay ka yaraato 0 waxa joogtaa maximum waxaan filayaa in isla fahansanaa intaas maxaan ka wadaa waa shaqaysi adiga su'aasha waa ka shaqaysi marka ka shaqaysi su'aasha jawaabta ku soo baxda hadii 0 ka weynaato minimum joogtaa hadii jawaabta ku soo baxda ee 0 ka yaraatana waxa joogtaa maximum labada eray waxaan ka wadaa tusaalahan sa u shaqeynaysa waxa ku soo baxday plus 2 0 waa point hadii plus ba ku soo baxo si kale markaan kugu dhigo tira plus ba ku soo baxdo minimum aa joogtaa tira minus hadii ku soo baxdana maximum aa joogtaa shaqada aad qabanaysid sa u shaqeynaysa hadii tira plus ay ku soo baxdo minimum aa joogtaa hadii tira minus ku soo baxdana maximum aa joogtaa bal hadda aan ku dabaqna marka mal aan shaqeyno waa kana marka aan daraaf gareynayna oo seen dhaheena kana daraaf gareynayna oo waxaan leenahay f of x and derivative ka koowaad ku sameeynayna derivative ka koowaad waa second derivative lagu ogaadaa type of solution ka nooca halka noo soo baxay derivative ka koowaad ma soo saaray ee waxa soo saaray second derivative aan daraaf gareyna marka kan daraaf garey waxay noqonaa 2x ileen markii kan la daraaf garey labadan hore ku soo dhacay halka go'ay kan la daraaf garey -3 intaan ayaa noo soo baxday marka soo marka second derivative aan geenaynaa second derivative ka markaan gelino wuxuu noo sheegaa inaan joogno maximum iyo inaan joogno minimum oo noo sheega hadda second derivative aan gelinayna waka maxaa meesha saaray laba calaamadood labadaas calaamadood waxa laga wadaa second derivative kan hore u soo daraaf gareys kan aan daraaf gareynaa qaybta hadda aan shaqeynaa daraaf kan daraaf garey 2 leeyahay soo marka 2 soo baxday ma balance ama soo minus wax minus ma noo soo baxay balance soo baxay
waxaa joogtaa minimum aan joogtaa 0 way ka weyntaa macnaha 2 minimum aan joognaa okay maadaama minimum aan joogno xaqiiqsan inaan minimum joogno soo marka anaga waxaana laga rabaa afartan jawaabood midkood inaan soo saarno si ku soo saarayna marka isla egtaana soo qaadaya waxaan leeyahay 2x minus 3 goormee 0 la ekaa kartaa aan leeyahay 2x equal 3 daana wareejinaya inta waxaan qaybinaya 2 inta 2 x markay la mid noqoto 3 loo dhig labo ay 0 soo bixi kartaa okay jawaabta meeshan ku soo baxday aan qaadaya hadana mar kale jawaabta meeshan ka soo baxday ayaan qaadaya oo maxaan sameynayaa jawaabtan soo baxday inta gelinaya y equal aan leeyahay ilaan anigu waxa laga rabaa x iyo y inaan soo saaro minimum ka laga rabaa okay inta waxaan leeyahay inta waxaan gelinayaa 3/2 inta soo qaado meesha x ku arko 3/2 daan gelinayaa waan square gareynayaa minus aan leeyahay waa kana 3 daan soo qaadaya x tan iga tuur 3/2 plus 2 ayaan leeyahay y equal aan leeyahay saddexdan laba mar isku dhuf waa 9 labadan laba mar isku dhuf waa 4 minus leh kan ikan iskuma baxaan saddexdan saddex ku dhuf waa 9 la hoos dhiga laba dheh plus 2 intaas markay marayso LCM aan u qaadaya LCM ayaan u qaadaya LCM kood muxuu noqonayaa marka qalinka idin bedelaya si ay sukiin dhaxyaacin LCM aan u qaadaya LCM muxuu noqonayaa marka 4y y equal aan leeyahay 4y LCM 4 intuu qaybi waa 1 intuu ku dhufo waa 9 minus leh 4 intuu qaybi waa 2 intuu ku dhufo waa 18 plus leh 4 intuu qayb kan hooseeyo leeyahay 4 qayb waa 4 kor ku dhufo waa 8 soo marka meeshan 9 hadii 18 aan ka gooyo oo minus 9 ay soo haraay minus 9 hadaan ka sii gooyo 8 oo plus ah adoo 9 kun lagu lahaa hadaan 8 kun aan wadato 9 kun 8 kun waa iska dhiibaysa kun lagu lahaana waxay noqonaysaa marka y equal waxay noqonaysaa -1/4 intaan dhan waxa ka soo haraay hal hoos dhiga 4 oo minus ah x waxaa haysataa 3/2 dilaan gelinayna marka intaas waxaan leenahay 3/2 -1/4 jawaabtaana rabnaa marka inaan meeshan ka dhaxelno a waxaana la 3,2 okay b waxaana la 3/2 -1/4 b sax ah b ayaa koobaabin gelinaysa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qaybta ugu horeysa aan ugu talagalnay oo examkii ahaa 2017 intii kulanta dambe waxaan idin leeyahay maalinta ha idin wacnaato iyo dadaalka inaad badisaan xanuunada socdana allaha waxaan ku leedahay naga najeeyo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Soomaaliya waxa idin sheegay segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubi hadaa idin sheegay waa lagu soo shulay